waraaqahan oo la sheegay in laga sameeyo lacagaha been abuurka ayaa waxaa sidii dooni u rarneed ganacsato Soomaaliyeed taasoo lagu qabtay dekada magaalada Boosaaso waxaana maanta dab lagu qabadsiiyay meel fagaara oo magaalada Keebeegan ka galbeed goorta lagu gubay waraaqahan ayaa waxa ku sugnaa xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dawladda Puntland waxaana gabi ahaanba dab la qabadsiiyay waraaqahan oo ay tiradu gaaraysay 1500 oo bandal wasiirka dekadaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeeda ee dawladda Puntland Engineer Saciid Maxamed Raage oo saxaafadda kula hadlay goobta lagu gubay waraaqahan ayaa sheegay waraaqahan oo loo wada gobolada dhexe ee Soomaaliya ay ka dameysay qabashadooda baaritaano laga sameeyo waxyaalaha laga soo dejiyo dekada Boosaaso wallahi siday ku soo dagashay waxa weeye kollayba ganacsato baa wadatay qaabkii doontaa ku keeneen waayo wadanka ganacsigu waa wax xor ah oo qofku wax doon keensan kara laakiin muhiim waxa in la ogaado waxa laga ganacsanayo waxa uu yahay markii la ogaado inay tahay warqadahan iyo warqada ganacsi maaragtay falso laga sameeyo lacagaha ayuun baa go'aanka dawladdu wuxuu noqday in la xanibo dekada lagu xanibo kabacdi inta maxkamad la saarayo taasoo dadkii lahaa iyo wixii oo dhan maaragtay la ogaaday waana arrin maaragtay hadda wixii ka dambeeyay shaalan rajeenayna in dambeeyana cidda keentay waxa weeye ganacsato reer Dubai ayaa lahayd ganacsatadii waxaan ma xukunka adeegi doontaan cidda magaca ku qaran cidda aan baay lahaanshaha leh waxa loo waday gobolada dhexe ayaa loo waday gaasiisa wasiirku xigeenka amniga ee Puntland Cabdicasiis Ciid Gacme ayaa sheegay in sharciga la hor keeni doono dadka ay u rarnay doonida siday waraaqahan laga sameeyo lacagaha been abuurka ah anaga ka wasaaradda amni ahaan waxaan igaga aadanaa amniga iyo shaqadaysa inaan gacanta ku hayno haddii ciidan tahay haddii wax kala tahay hawshii sidii maxkamaddu u xukuntay baan u fulinay waxa kale oo maxkamaddu ay xukuntay cidii iska lahayd alaabta inay research tahay markay wadanka soo gasho insha Allah iyagana maxkamad la saarayo waxaana looga digay ganacsatada dib dambe cidii u keenta in sharcigu wuxuu ka qabo insha Allah iyagana lagu qaadi doono iyo gaadiidka soo qaadaya Puntland ayaa mudooyinkii dambe wada qorshe wax looga qabanayo lacag